وزير الدولة وزارة الدولة هودا سوماليلاند ayaa booqday gedida diyaaradaha ee gobolkaasi Sanaag warkan waxa gobolkaasi Sanaag nooga soo diray wariyahana Aalaba nooga soo warrama gobolkaasi Sanaag wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynax oo safar shaqo ku joogay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa kormeer ku soo maray garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceerigaabo isagoo halkaasina si weyn ugu kurgalay baahiyaha ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceerigaabo oo weli ka muuqdo burbur xoog leh oo ka muuqda dhismaha xafiisyada garoonkaasi waxaana wasiir dowladda ku soo wareegay dhismaha garoonka ee burburay iyo gegida diyaaraduhu ka haadaan ee garoonka diyaaradaha magaalada Ceerigaabo halkaas oo warbixin kaga qaatay mas'uuliyiinta garoonka wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynax oo dhankiisa sheegay in wasaaradooda ay diyaar u tahay wax ka qabashada baahiyaha garoonka magaalada Ceerigaabo inuu dayacan yahay xagga falaydka xagga formation kan dhulka daryeel aan badan dawladda oo aan intii hadda ay talada haysay total haba yaraatay wax ka qaban xilli doorasho la galiyo aan maran inta doorashada ka horeysa ee cid kasta baa hadhow guuleysatay laakiin maanta aan maran inaan laga gaarsiinaynin shaqo xusbiga talada hayo imika ka qabto gegida sidaa darteed horta wasiirka waan soo dhaweynayaa wasiir dowlaha marka baahida meesha looga baahan yahay waxa weeye horta marka koobaad airportka in la xiro oo laga xiro xoolaha waxaynu nasiib u yeelanay inaynu soo booqano garoonka diyaaradaha magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ku yaala kaasoo markaa wasiirku uu doonayay inuu sii indheeyo waxaan rajaynayaa iminka haddii la yiraahdo in madaarka dib loogu soo jeesto oo la dhiso mudane wasiir waxaan kugu wargelinayaa in horumarka ummadda ay ka mas'uul yihiin infrastructure-ku sida dekadaha wadooyinka iyo airportada garoonkani haddii wasiir la furo wuxuu wax weyn ka tarayaa in qurba joogku si toos ay halkan uga soo degaan oo marka garoonka ay yimaadaan wuxuu wax weyn ka tarayaa booqdo oo kormeer aan ku nimaadno garoonkii diyaaradaha degmada Ceerigaabo oo ah garoon aad u fac weyn oo garoon aad ballaadhana ujeedkayagu wuxuu ahaa laba arrimood waa mid inaan ogaano baahida taalla garoonka inta ay leeg tahay garoon sidiisaba wuxuu macno leeyahay marka diyaaraddu ka soo degaysa ka kacayso kulli labadaba waanu aragnay arinta labaad aan u soconay waxa weeyaan inaanu ka diro fariin inaanu halkan ka diro fariintaasoo ah in garoonkani uu yahay kamid yahay kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada bari siiba gobolkan aadka u ballaadhan ee 8%